miyaad weli nafsad ahaantaada isweydiisay micnaha qarsoon ee wareegyada ama xariijimaha gudaha garoomada kubadda cagta sida wareegga halka kubadda laga baasto, qaasada wejiga hore ee xerada ganaaxa iyo xitaa halka koornada laga soo tuuro? haddii aadan weli maskaxdaada ka helin su'aalahaasi jawaabahooda, muuqaalkan ayaan kuugu sharaxi doonaa muhiimadda ay u leeyihiin kubadda cagta. intaanan guda gelin, haddii aad xiiseynaysa inaad daawato muuqaalkan, waxaan si weyn kaaga codsanaynaa inaad muuqaalkan like saarto, sababtoo ah taasi beejka ayay muhiim u tahay. una sheergari asxaabtaada xiiseeya kubadda cagta si ay wax badan uga fahmaan. waad ku mahadsan tahay la socodkaaga. tan iyo markii ay kubadda cagta ka soo bilaabatay waddanka Shiinaha qarniyo hore, sida taariikhda ku xusan ama horumarintii kubadda cagta ay ku sameeyeen dadka ka soo jeeda qaaradda cajuusada ah Yurub, qaas ahaan reer England, dhammaan dadka xiiseeya tartamada ayaa dheeshan kubadda cagta u qaaday cishq daran. tan iyo markaasina si weyn ayay ula socdaan. kubadda cagta waa ciyaarta ugu shacbiyadda badan xilligan adduunka, iyo dheesha lagu qasiro lacagaha ugu badan ama mushaar ahaan loo bixiyo. balse tan iyo markii ay bilaabatay in wax laga bedelo sharciyada qadiimiga ah ee kubadda cagta, waxa ay noqonaysay ciyaartan mid farshaxan ah, waxaana dhaqamada qaar ee kubadda cagta la xiriira ay noqdeen kuwo la jeclaysan karo. inkastoo taageerayaasha kubadda cagta aysan diiradda saarin waxyaabaha ay indhahoodu qabanayaan ee ku saabsan xindaabka cagaaran ama garoonka kubadda cagta lagu ciyaarayo, misena waxay ku foogan yihiin keliya ciyaarta iyo ciyaartooyda garoonka ku dhex jira, haddana waxaa lagama maarmaan ah in qofku uu marun isweydiin karo waxa ay ka turjumayaan saddexda xariiqan ee ugu saamaynta badan ciyaarta. waxaynu ka hadlaynaa wareegga xerada ganaaxa ee ka dambeeya rigooratuuraha, midka dhexda ee ku wareegsan halka kubadda laga baasto iyo halka koornada laga soo tuuro. haddii aad u malaynayso intaasi ay tahay qurux keliya, hubaal waa aad qaldan tahay. aynu ku bilaawno wareegga sida qaansadii oo kale ah ee xerada ganaaxa. muhiimadda ay leedahay waa in fursad fiican la siiyo rigooratuuraha oo dhammaan xiddigaha kale ee garoonka jooga ayaa ka daba maraya wareegga ku beegan xiddigan ama halka rigoorada laga tuuro. xiddiga laadaya rigoorada waxa uu heli doonaa fursad uu ku samaysto dhul badan uu ku ordi karo, mana jiro xiddig wakhtigaasi lugta soo dhigi kara wareeggaasi ama xitaa xerada ganaaxa. rigooratuuraha ayaana haysta xorriyad uu kubadda ku maamuli karo. xitaa marmarka qaar waxa uu wareeggaasi siiyaa goolhayaasha inay qaataan go'aanka ugu dambeeya. haddii weeraryahanku uu xeradaasi soo galo, goolhayuhu waxa uu go'aansan karaa halka uu malaynayo in kubadda laga dhigi karo, isagoo cabbiranaya amaba u dhowaanaya halka uu isleeyahay kubaddu waa ay imaan kartaa. xitaa waxa uu qaadan karaa go'aan uu ku soo bixi karo, islamarkaana uu u qalqalgelin karo weeraryahanka, waana marka difaaca uusan joogin halka loogu talagalay. taa cagsigeeda, weeraryahanada waxaa xariiqan uu ka caawiyaa inay qaataan go'aanka saxda ah, waayo waa meel ku beegan goolka, islamarkaana xiddigga isagoo wejigiisa aan kor u qaadin ayuu kubadda ku tuuri karaa goolka, isagoo cabbiran kara halka ay goosha ka jirto. halkaan warbixintan ka soo akhriyey ayaa tilmaamaysa keliya sababahan inay tahay wareegga sida bishii oo kale ay ku samaysan xerada ganaaxa wejigeeda. 2. booska laga tuuro koornada iyo xariiqa ku yaalla. si sahlan waa halka koornada laga soo tuuro amaba la dhigo kubadda si loo xakameeyo in xiddigaha aysan adeegsan khiyaano cabbirka ah oo aysan fursad ugu helin inay goosha kubadda si toos ugu bartilmaameedsadaan. waa booska uu xiddig walba ku qasban yahay inuu kubadda dhigo marka uu soo tuurayo geeskalaadka, waana sababta aan sida tooska ah koornada gool loogu bedeli karin wakhti walba, islamarkaana dhammaan xiddigaha ay isku dayaan inay madaxa la helaan amaba ay xitaa lug ku dhammaystiraan. walow ay jiraan xiddiga xariiqaasi goosha ka soo bartilmaameedsan jiray, aan xitaa u adeegsano ficilka hadda ah ka bartilmaameedsada. si aan u soo qaadanno raacadhisaha kooxda Los Blancos ee Jarmalka Toni Kroos, kaas oo mar dhoweed isku dayay in koorno toos uu dhaliyo, taas oo ka sii saaciday taabashada goolhayaha, islamarkaana uu gool ugu bedelay kooxdiisa cadcadka. waxaana jira sidoo kale xiddigo kale oo koornooyin ay soo tuureen gool ay noqdeen. midda saddexaad oo tan ugu dambaysa, wareegga kubadda laga baasto. wareeggan waa kan ugu caansan, inta badan macallimiinta kooxaha ayaana booskaasi dhigta xiddiga ugu awoodda badan safkooda ama xitaa ugu caqliga badan. inkastoo ay jirto sheekooyin badan oo ku saabsan wareeggan, haddana midka ugu muhiimsan ayaa ah waa in xorriyad la siiyo xiddigaha samaynaya taabashada ugu horreysa ee ciyaarta, qaybta koowaad iyo qaybta labaadba. inkastoo sharciyada qaar wax laga bedelay wakhtiyadii la soo dhaafay, haddana markii hore waxay ahayd in laba xiddig ay kubadda baastaan, taasi oo wareeggan marka cabbir ahaan la fiiriyo ay ka dhignayd in xorriyad badan ay helaan
labada xidig ee sameynaya taabashada dhammaan xidigaha labada kooxood ayaana wareegaasi bannaanka uga baxaya. xitaa sidoo kale wareegan waxa uu yahay mid muhiim u ah garoonka maadaama uu si weyn u qurxiyo. marmarka qaar waxaa bartamaha garoonka lagu beegaa shaabado iyo calamada marka la sameynayo meherajaanada gudaha garoonka oo tartamada finaaladooda la qabanayo. haddii aad adiga muuqaalkan daawatay oo aad ogaatay waxyaabo kaa qarsoonaa ama xitaa aan kuu sheegay waxaad hore u ogeyd, waxaan kaa codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan. waxaan kaa raaligelinaynaa haddii aan lumiyo wakhti yar oo ka mida wakhtigaaga islamarkaana aad wax badan ka faa'iidin. aad u mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafino.